shiiqow dad dowladaha markii dowladdan Soomaaliya xamaran jooga aniga marka qolooyinka xoogaa iska mucaaradkan iska ahaa marka waxaan u gafay dhowr mar oo wax ka sheegay musharaxada oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur nin la yiraahdo marka waxyaabo badan aflagaadaran waa dhahay marka dib waxaan ku ogaaday inay qaldan tahay marka maxaa ila gudboon inaan dhaho oo عفي macnaha oo liiga cafi kara عفي ساكو على فكرة النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة من أخيه وحو يري فليتحللوا الآن مالي waxaa imaanayo qiyaamaha aan la iscafinaynin marka dadka hadda siyaasadda isku haysta hadda is cafinin qiyaamaha waa kala shalayna marka asaga ku cafi kara xaqiisa asaas kale qofka cirdiga iyo sharaftiisa iyo asaas kale marka asaga waxaan ka rajaynaynaa inuu cafiska ogolaado maxaa yeelay qofka min aadin gaf waa gali karaa qofka ilaahay u tooba keeno waa qof wanaagsan oo dembiga inuu ka laabta rabo marka waana ka filaynaa inuu cafinayo insha allah sheekho hal su'aal kaloo yaran ku dara marka waxaan ka umdaas insha Allah saan kula xiriir heli doonaa marka sheekho xoogaa salaada iga tagta marka shaydaanka xoogaa salaada subaxun baa iga tagta marka maxaa ayadana marka salaado dhan ama salaad gaar ah ama salaado dhan salaada waajibka marmar dhifo waayo ama salaada subax salaad subax kaliya ka tagto miya نعم صلاة الصبح dad badan ay ka tagtaa tagitaanka asbaab ay leedahay asbaabteedu waxa weeye habeenka ha dhafrin ko dhaqso u seexo maxaa yeelay fajrkii waqti haddaad habeenkii aad leed seexatid salaad subax ma kici kartid adaa u sababa haddaa hurda weyn tahay munabah keenso waxaa la yidhahaa maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib macnaha waxa waaye salaada waajib waaye ma suuragelaysa kacd ilaa iyo alarmina keensa alarmina keen soo gadataa waajib kugu ah موبايلك ku buuxso ama soo gad mid qaalinayso taasna waa ku kicinaysaa waxyaabaha salaada ku kaalmin waxa kamid ah inaad aad dhikriga ilaahay ku seexataa markaa seexinaysa adkaarti iyo adoo weyse qaba seexataa insha Allah ayad kursiga birbanaas birfalaq ee salaada ku kicinaysa insha Allah insha Allah sheekho waa ma santa ku salaam Allah ku xafido barakallahu fiik jazakum Allah khair akhi dhinaca kale alo السلام عليكم معلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أصول الناس عليه جلوة لو سؤال. ويد ويد كرتا. شيخ السلام عليكم وحالنا كويجرا ولو سؤال هنا كويجرا. تنكوت في دونك مبنايا يرتا. معوي؟ في دونك مبنايا في دونك قفك انت لو اغرياء. واقرتي تان لبات هذا نينك دنت او صباح لو قلايو اسمه بنايا كان نينك دنت wax loo qalayo banaaya naam waa fahmay tan kuwad ha tookar saddexaad ma jirto tan saddexaad ninka marka dhinto oo subax loo subax maslaxayo subax kaas banaaya maxal subaxi subax kala galayo marka saayilada oo dhintay subax haye وبنايا إذا شيء أنا وجرا واحد. هذا صبح ديد محل سمينا ما فهم انتاس. تاس مركو أنت صبح لجلا قرآن الأركان. صبح واقف صبح نعم. صدح واسكو دوين كل ود ميتك كتعلقان. مسألة أحكام ميتك إن مسألة قرآن كله آخرنا أيو مجارة تذكير كوان شكني وحار علماء ويدي علماء ويبنيس أنا وحار رجحين إني جارة تصبيح ذكري وكميديا معايا النبي عليه الصلاة والسلام لبدا قبر أوير إنهم ألا يعذبان والعذاب مركو يري وما يعذبان بكبيرة وحوين لقوم عذابا يري أما أحدهما فكان لا يستطيع البول كان هذا كم دقيقة جيرين كيل يري مركو حولي النبي عليه الصلاة جريدة سوق هذا أقوين وكسر وحو يري أي قدام دافيسا تسبيح معنا ما لم يبصا إلا كقارن جيتك نول وحا أكسونا تسبيح وكجرا جيدا هو تسبيح سدان لقى تسبيح سدو ويسوي إليه قرآن كانوا أقول شيء مركا تسبيحاس ayuu geedkaas oo qoyan ugu taago wuxuu yiri inay lacala ilaahay u dima dhaafo marka ilaa ay ka qalasho yarday qalash geedku waa dhinta marka waxa cad marka geed tasbiixdiisi ayaa gaartay halkaas ay marka waxa laga keenay in marka fidow maxaa waayo tawxiid waayo waa dhikri waa asaga ma qaan 70 kun waxay ku cadadeen taas daliil loo ma hayo xaqiiqatan ma arag anay daliilkeeda laakiin dhikrigu soo galaa ma loo akhri karaa dhikri nimcana waa loo akhri karaa dhikri oo ma gaaraya quraanka iyo wixii la mid yahay marka waa aanu sheegay masalada aniga waxa yar waa gaaraya marka akhriskiisa dib ma halkaas kuma laha masalada kale waa dhaqan xun weey taa sheegto oo ah qofka inuu dhinto intuu nool yahay asagoo aan waxba loo qabanin oo xataa dadka tolkiisa ay daawo soo dhiibeynin oo ninka laga yaabo cudur laga daaweey karin oo ku dhintay inkastoo ajishiisa ku dhintay ayaa laga yaabaa haddana markuu dhintay inuu geel loo qalo
geelkaas horta masaakiina ka faa'idaysatay dad ilaahay risaq dada ugu soo qaadaa nabigu wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam nadarka wuxuu yidhi qadaaga wax ma ka bedelo laakiin nin bakiila wax looga soo qaadaa dad bakiila oo dadaa wax cunin rabin ayaa wax looga soo qaadaa nacam laakiin masalada ah sunnada waxaa ah qofka markuu dhinto inaan xoolihiis la cunin bal asaga cunno loo sameeyo marka haddii geelka ay dad ay ku tabaruceen banaanka ka keenayaan dadka ay siinaya okay laakiin gurigii la cabiro ma aha meelaha kale ha ku dhigtaan deer ma haddii masaakiinta loogu qaybiyo oo lagu duceeyo dhib ma laha laakiin ciddii ala kalifin asalka waxay ahayd isnucu aala jacfar uu nabiga alayhi salaam caamka loo sameeyo musiibo asiibteen